iyadoo ay abaar baahsani soo food saartay guud ahaanba gobolada bariga Galmudug Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xalay goor dambe habeenimo ah waxaa soo gaaray degmada Gar'adag ee galbeedka gobolka Sanaag hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo saraakiil sare oo ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga waxaana saaka aroortii hore ka bilaabay degmada Gar'adag iyo deegaanada hoos yimaada riyaldamiskii ugu ballaadnaa ee la gaarsiiyo dadka ay abaaruhu aafeeyeen ugu horeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay hogaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo xubno ka tirsan golaha dhexe ee xisbigaasi isagoo oo sheegay inay biyo iyo baadba gaarsiinayaan dadka ay abaaruhu barakiciyeen wixii ay u awoodaan waxaana ku baaqay in loo gurmado dadkan xaaladda degdega ah ku jira ay xoolihii ka madheen dhanka kale ayaana waxa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee degmada Gar'adag Cabdisahal Jaamac Xasan gudoomiyaha garabka haweenka ee degmadaasi Aamina Jaamac Boqolle iyo qaar ka tirsan dadka danyarta ee abaaruhu aafeeyeen waxayna uga mahadnaqeen biyahani uu soo gaarsiiyay xisbiga wadani iyaga oo sheegay inay u waxaan halkan joognaa Gar'adag waxaan u leeyahay gurmadka abaaraha oo la siyaasadeed doonaya dadkeena kala qayb qaadanayna dhibaatada jirta abaarta iyo biyo la'aanta ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu soo gurmado oo gargaaro oo dadka ilaahay subxaanahu wa ta'ala qabo keeno waxaan runtii ilaa shalay soo soconay soo bilaabay intii laamigaan ku soo degnay ilaa halka kan wixii aan emergency ka gaarsiin karaynay baan ka gaarsiinaynay aanu siinayno degdeg u siinayno biyo iyo raashin wixii suurtagal ah waxaan hore u wareejinay xisbiga wadani waxaan hore u wareejinay wixii awoodeedu ahayd waxaan ku wareejinay guddiga qaranka ee abaarahan tuulooyinka iyo anagoo miyiga iyo magaalada marayna aan ku talagalay wixii aanu qaban karo awoodeeda aanu qabanno wixii aanu ka warrami karay warkooda tabin karo ee dhawaaqa meel dheer gaarsiin karo dawladda iyo waxa weeye hay'adaha iyo dunidaba inaanu ku boqol hogaamiyaha xisbiga wadani mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ku sunta runtii markii uu dawladda ku jirayna reer Gar'adag way og yihiin horumarkii laxaad kale ah degmada ka geystay maanta oo uu rabo inuu hankiisa iyo himiladiisa uu ka mira dhaliyana waa og yahay inuu ku caanbaxay taakulaynta dadka abaaruhu ay saameeyeen waxaan ku leenahay hogaamiye abaartan dhacday abaari hore dhici jiray ka maqla jiray awooyaashay dabadheer iyo waxa weeye iyo gargaarkii mid ka xun dhacdooyinka laga sheekeeyay baa ka dhacday dhacdooyinkii saaka aan la kulmay markaan subaxii kacnay waxaan soo maray gabadh ari dareerinaysa waxay u daadinaysay galey dhulkay ugu daadinaysay shimbiraha la cunayay shimbirihii iyo xayawaankii iyo xoolihii wixii wax way wadayacan yihiin عوض الناس وقاسية فيها حرات تدقق فيها الناس وقاسية وانهم هالطقمان إلهي باخر طور والحياة وحقوق هي كاتشل هي حرات طلابية والله حتى تطبع حالينا واجي فان واجي الحسيين إن بدنا حاج عبد نور تلفزيون كعالمي هون كيبل تي في دegmada Gar'adag